يا برنامج عصب ومقال maqalan ku wareysan doono dadka dhalinyaro wararka iyo kuwan u arko in warkoodu iyo afkaartooduba dadweynaha maqlaan waxaan maanta isniina bishu tahay January 3 2011 aan halkan idinku hayaa wareysi khaas ah oo la yeeshay aqoonyahan Soomaaliyeed oo wax ka dhiga jaamacad ku taala dalka Canada waa Dr. Xuseen Axmed Warsame. Professor Warsame wuxuu madax ka yahay qaybta Accounting School of Business, University of Calgary. wuxuu leeyahay faculty fellow certified general accountant wuxuu shahaadooyinkiisii horeysay ka qaatay jaamacadda la oran jiray jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Somali National University wuxuu MBA-dana ka qaatay California State University Fresno PhD-diisna wuxuu ku sameeyay University of Calgary. Dr. Warsame wuxuu kaloo wax ka soo dhigay jaamacadaha Concordia University oo ku taala Canada, United Arab Emirates University, jaamacad ku taala South Africa iyo Somali National University. Dr. Warsame wuxuu kaloo leeyahay qoraallo badan oo lagu daabacay joornaalada khuseeya takhasuskiisa. Dr. Warsame waxa kaloo muddo badan ku soo jiray siyaasadda Soomaalida iyo guud ahaan siyaasadda Geeska Afrika. Shirar badan oo ka qayb galay, talooyin badan oo ka dhiibtay. Dr. Xuseen Axmed Warsame ku soo dhawow wordofnews.com. والعبد عادي أبض ما تنتهوان دوحي waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo marka ugu horeysa Dr. Xuseen ilaa intee leegaya qurbaha degan tahay dibse ma ugu laabatay dhulkii عبدو سؤاشا إن الوديث وان كبقيو دعالي شيء دونتا لكن waxa aan imid North America runtii ilaa 1985 waan joogay Canada waxaan soo galay 1986 ilaa waqtigan halkan aan joogaa laakiin nasiib wanaag berigii aan jaamacadda United Arab Emirates University aan ka dhigi jiray ku taala United Arab Emirates Al-Ain magaalo la yiraahdo ayaan fursad u helay in aan wadanka ku noqdo marka waxaan soo siyaartay Boorama oo aan muddo joogay iyo Hargeysa iyo inta ku dhow ilaa baki meelaha bay soo weerartay marka 2005 ayaa iigu dambeysay wadanka hagaag Professor Warsame waxa aad ka mid ahayd niman aqoon-yahano Soomaaliyeed oo ka qayb galay shir dhawaan lagu qabtay dalka Djibouti oo lagu falanqeeyay amuraha Soomaaliya waxaad nooga sheegi kartaa wuxuu ahaa shirkan xorkiisa shirkaasi walaal waxa soo qaban qaabiyay dad ma garanaysa Soomaaliyeed oo mutacalimiin ah oo la hoos galay dawladda Djibouti oo yiri bal waxaan doonaynaa inaan ka talino arrimaha Soomaaliya dabeetana dawladda Djibouti waxay tiri ma garanaysaa waxba kama qabna ee ku soo dhawaada marka macad la yiraahdo macadkiisa raadishiyada oo uu ka mid yahay madax yahay nin la yiraahdo Dr. Usman Rabi Umar Usman Rabi ayaa ma garanaysaa qabanqaabiyay hotel Sheraton ladaba lagu qabtay runtii qarashkana inta badan waxa bixinayay dawladda Djibouti ayaa bixinaysay shirka marka waxa lagaga hadlayay oo la isweydiinayay waa arrimahan soo socda ee Soomaaliya si xumaanaya sidee baa wax looga qaban karaa gaar ahaan waa tan dawladda waqtigeedii dhamaanayso August soo socota inta ka horeysana in wax micno la helo waa loo baahan yahay ilaa iminkana lama hayo wax micno leh oo waxa bedeli kara dawladda laftigeeduna waa tan yaaban leegleeganaysa marka maxaad ku talin lahaydeen maxaa la yeelaa bal na weydiiyay annagu marka dabcan waxaan ka hadalay waxyaalo badan oo marka horeba dad baa laga sii hadlo leeyahay warqado soo qora ku saabsan mesela arrimaha macaawinada oo anigu aan wax ka qoreeyay dhaqaalaha mesela sida goboladu dawladaha gobolka ku yaala saakaashan kana arrimaha dhaqaalaha waxyaalaha siyaasadeed uu noqon karto arrimaha dhaqaalaha hadii dawlad hagaagsan la sameeyo maxay ka qaban kartaa diinta soo celintii qaranka Soomaaliyeed dadka banaanka jooga qurbo jooga loo yaqaan meeshay ka qaadan karaan soo celintii qaranka Soomaaliyeed waxa kaloo laga hadlay diinta laftigeedu qaybtay ka qaadan kartaa waxa kaloo laga hadlay arrimaha nabadgelyada oo nin generaal ah warqad dheer ka soo diyaariyo nimankii booliiska ugu dambeeyay runtii generalkii booliiska ugu dambeeyay waxa uu ka soo jeediyay arrimo noocaas iyo gaar ahaan hadii dawladdu sameeyo dawlad noocee ah haboon baarlamaanku noocee ku haboon yahay
dastuur noocaaba la samayn karaa ma madaxweynan iyo madaxweyne ku-xigeenman ka dhignaa ma prime minister iyo madaxweynahan sidan uu yahay baan wadnaa su-aalo noocaasa baan isweydiinay talooyina dawaan kasoo bixinay cabdiyo waad mahadsantahay si fiican baad udhigtay professor su-aasha kale dadku isweydiinayaan waxay tahay haddaad tihiin aqoon-yahanadii banaanka joogay iyo kuwii gudaha joogayba innaba idinkuma isku dayday inaad wax ka qabataan ood bedeshaan dadweynaha dawladdan cusub ee dawladdan hadda joogtaa iyo kuwii hore soo marayba innaba inu ididiilama idinku jirtaa inaad bedeshaan walaal cabdiow horta isaga ayay runtii ku xidhan tahay inuu doonayo inuu ka qayb galo siyaasadda iyo in kale qof walba shaksigiisa laakiin guud ahaan hadda waxaan dareemayaa haddii markii hore aanay jirin oo dadka mutacalimiintu aanay si gaara uga qayb gelin oo ayna dooran inay magaranaysa uga qayb galaan hadda inay arrintaasi bilaabantay oo aad mooddo inuu dhaqdhaqaaqyo badan uu socdo hadda oo runtii shirka iyagaasi ma ahaynka keliyahe arrimaha soomaaliya kada xataa nairobina mid baa ka dhacay qaar kalena dhacaan waa suuragal haddii laha yidhaahdo marka iminka waxaa laga yaabaa in arrintani keento dhaqdhaqaaq ay dadkii mutacalimiinta ahaa is urursadaan oo ay yidhaahdaan waar wax inagu aan leenahay oo aanaan la hoosgelin dawlado oo inagu aan dhaqaale iska ururino oo aan hawlaha inagu wadna aynu samaysana in la yidhaahdo ayaa aada u suuragala marka hadda waxaan umaleeya in arrintaasi runtii bilaabantay oo dadkii meesha isugu yimi si aan ka dareemaya waxa u ekayd inay dadku doonayaan hadda inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo noocaasa oo xoog leh oo in laga qayb galaa dee sidaad u og tahayna xataa dawladda yare ugu dambeysay uu soo sameeyey prime ministerka cusub ee ma garanaysaa ee farmaajo uu soo sameeyey runtii waxa u badan dad wada qurba jooga oo dhalinyara oo waxbartay ayaa u badan marka ha arrintaasi waa jirtaa oo markii hore haddii dib laysku yarayay hadda kadib waxaan umalayna dib laysku haynaynin su-aasha kale aan qaba waxay tahay professor sidaad u aragtaa sidaad arkaan bulshada soomaaliyeed iyo gudaha soomaaliya degan kulankiina inaad iskugu timaadeen inaba wax feedbacka ma ka hesheen horta kulanka dee walaal way nagala qayb galeen oo mutacalimiinta meesha joogtay ma ahayn keliya kuwa banaanka iyo kuwa gudahaba way ku jireen oo waxaa laga yimid meelo badan Kismaayo Baydhabo Muqdisho Garowe meelo badan Hargeysa meelo badan baa laga yimid oo Djibouti wala laga soo biray qaar marka ma ahayn keliya dadka qurba joogun ma ahayne mutacalimiinta guduhuna way ku jireen marka runtii xataa kuwa dawladda kumeel gaarka ku jira ilaa dhowr qof oo dawladda kumeel gaarka ka socday baa iyaguna ku jiray baarlamaanka kuwa kamid ah ku jiray marka ma ahayn horta wax noo gaara dadkuna runtii si baan u wada arkaynay dadka iyaga banaanka iyo kuwa gudaha jooga arrinta xasaasiyadda ay leeyahay iyo baahida loo qaba in la isku xidhmo dadkii waxbartay oo aada isugu xidhmo gudihiyo banaanba si baa loo wada arkayay sidaan anigu dareemay aqoon-yahanada kasoo qayb galay shirkaasi ma gobolay ka kala yimaadeen ma waxay ahaayeen aqoontooda kasoo ma waxay ahaayeen dad beela lagu soo doortay siyaabaha u dhacday shirku siduu ahaa doorashadaas maya walaal horta dee kolley dad markii hore adigu shirka waxaa noo bilaabay 5 qof oo ma garanaysaa ahaa dad soo qabanqaabinayay oo ma garanaysaa cali sabiix ku kulmay 5 qof oo dabcan dad aad is odhan karto dadka Soomaaliya ama haddii qabiil loo eego ama haddii gobol loo eego Axmed Diila way ka koobnaayeen oo mutacalimiin ku kulmay kooxda waxaa hogaaminayay professor Cabdi Ismaaciil Samatar ma aha Axmed Ismaaciil Samatar Cabdi Ismaaciil Samatar baa hogaaminayay marka dabcan shantoodii 5 bay ahaayeen qof walba dad baa loo qaybiyay oo yiri bal hadaas adiguna qaarkeen dadka tuhmayso inay ma garanaysaa wax ka tari karaan qaarba dad baa loo qaybiyay marka sidaa darteed dadka meesha looga yeeray dad isku miisaaman oo dhinacii haddii la yidhaahdo de wixii baasaay la sheegi jiray isku miisaaman qabiilooyinka isku miisaaman haddii gobollo la sheegayo isku miisaaman haddii la sheegayo ma garanaysaa dhinaca waxoogaa diinta iyo kuwan diinta in lagu xukumo dawladda doonaya iyo kuwa ma garanaysaa leh caqligan aan isticmaalay cilmaaniinta loo yaqaano wax isku miisaaman ayaa runtii lahaa waxaan odhan karaa dumarku waxoogaa waa nagu yaraayeen laakiin iyaguna runtii waa ku jireen wayse ka yaraayeen ragga professor xuseen waad mahadsan tahay su-aasheeda xigtaa waxay tahay innaba raje ma ka leedahay Soomaaliya inay dib u soo noqoto ha cabdiyow waxaan rumaysanahay runtii Soomaaliya inay soo noqonayso inay khasab tahay inay soo noqoto
wuxuu cabdi markuu qaran burburo si degdeg kuma soo noqdo Lebanon waad ogeydeen meelo badan waad ogeydeen si fudud runtii kuma soo noqdo inaguna hadda waxaan qabaa haddii aan Soomaali nahay in waxa la wixii keeni lahaa soo noqosho inay diyaar yihiin qaybihii ingredients wixii loo oran jiray diyaar yihiin kow horta waxba aan baranay oo dadka banaanka jooga aad buu wax u barteen kuwa gudaha laftigooda xataa inta dagaalada lagu jiro haddana jaamacadaha laga baxayo wax waa jiraan cilmigii waa jira waliba dadka banaanka oo dad milyan ku dhow ma waan yeelanay oo dadka banaanka jooga iyo kuwa gudaha xataa maal way sameeyeen cabdi oo lama maal yara isla markaa la qiirana imika way jirtaa oo aad baan u yaxyaxaynaayo waan khajilnaa iminka sidaan wadankeenu daayacay marka suuragal waxa hadii la hayraado waxa marka la isku daro arintaas waxay sheegaysaa inay dadka iminka u soo guntadeen in la soo celiyo qarannimadii Soomaaliyeed hadii la soo celiyana cabdow hubaal waxa anigu dhaqaalahan ahay waxaan hubaa inay wax alla wixii horumar degdeg keenayo dhan inuu meesha yaalo ilbaxnimadii ba taala cilmigii baa yaala waxoogaa lacag waa la haystaa wadanku wuu ilbaxay dad badan meelo badan buu ku furan yahay marka waxaan qabaa in ay soo noqon kartana Soomaaliya waliba haddii ay soo noqotona si degdeg ay horumar degdeg u gaari kartaa baan qabaa anigu waa tahay professor wad mahadsan tahay su-aasheeda kale waxa weeyaan adigu waxaad ka soo jeedaa aqoon-yahanada ka soo jeeda beelaha Somaliland gaar ahaan gobolka Awdal laakiin waxaad u ololeysaa Soomaali weyn aragtidaada siyaasadeed ee ku aadan sumadnimada Soomaaliyeed waxba iska bedelay walaal maya cabdi wuxuu iska bedelay ma jiro anigu waxaan u ololeeyaa in Soomaaliya ay isku timaado laakiin waxaad ogaataa cabdi waxaan rumaysanahay falsafada oranaysa qofku horta gobolkiisa waa inuu ku xisaabtamo isaga leh gobolkiisa oo mesela Awdal anu waxaan oran karaa haddaan reer Awdal ahay gobolka aniga leh isla markaa haddana waxaan ku xisaabtanaa Somaliland in dee laga qayb laga yahay xoog leh oo waxaan oran karaa dad Somaliland dad baan la leeyahay laakiin waan la leeyahay dadka oo ma garanaysaa ka khajili maayo inaan horumar hadduu ka socdo ka qayb galo hase ahaatee haddana waxaan rumaysanahay in Soomaaliyana la wada leeyahay oo wax ku leeyahay ayaan rumaysanahay oo ay tahay inaan dee ma garanaysaa ka qayb galo wixii ka socda midna dawaa jirtaa oo cabdow adduunku wuxuu socdaa inuu isku soo ururayo oo dad badan ay isku imanayaan Yurub badarka maanta inay hal samaysanayaan ma garanaysaa urur samaysanay EU la yiraahdo North America waxa ka dhacay waad ogtahay inuu isku furmayaan waad ogtahay sidaa daraadeed in Soomaaliya yar oo 10 milyan ah la kala qaybiyaa wax macna ah oo ay samaynaysaa ma jiro Italy yeelan maysid dhaqaalahana xuduuduhu sidoodaba waa u nacab anuu dhaqaalahan ahay oo meel kale xuduud samayso dhaqaaliba hoos u dhigaysa hadii laakiin xuduudada la badiyo la furo oo ay Soomaaliya sideedii haato oo hadhowna ma garanaysan ka shaqeynaa in Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti iyo waxa soo xuduudahan la leenahay aan ma garanaysan khafiifino horumar degdeg ayaa la gaari doonaa marka walaal waxba iskaga kay bedelin laakiin taa micnaheedu ma aha inana Awdal dan kala hayn ma aha inana Somaliland dan kala hayna ma aha arintu waxa dhawaanaan wararka ku maqalay siyaasiyiin Soomaali weyn oo ulayn jiray oo ku soo noqday deegaanka Somaliland oo qaarkood ka tanaasuleen aragtidoodii si aad u aragtaa horta walaal waan maqlay in siyaasiyiin ma garanaysaa Soomaali weyn oo ulayn jiray oo ay kamid yihiin dicarka baan ku dhuftay nin la yiraahdo ma garanaysaa Cusmaan Kalluun inuu soo noqday oo haddana uu ka baxay waxa hadda la sheegay inuu soo noqday Maxamuud Cabdullaahi Jaamac Sifir oo ma garanaysaa jooga inay ka noqdeen ma garanaysaa wixii inay ka noqon runtii cidina ma hubto laakiin cabdow xaq bay u leeyihiin dadka rumaysan Soomaali weyntu inay Hargeysa Boorama tagaan xaq bay u leeyihiin waliba aad baan ugu faraxsanahay dawladda Soomaaliland inay nimanka iminka ama wax yeelaynin ama ayna wax u dhimin aad baan ugu faraxsanahay oo waxa dimalaha u eg tahay inay soo ilbaxayaan oo arintooda ay ka duwan tahay tii ay sameeyeen bishii September mar ma garanaysaa yimaadeen laba nin oo ka tirsan baarlamaanka ma garanaysaa Muqdisho jooga Soomaaliyeed oo la kala oran jiray Cabdo Shoodhe iyo ma garanaysaa Axmed Xuseen sitiin la yiraahdo ay yimaadeen Boorama dabeetana lagu xiray oo xadhig loo taago la dhowr iyo 10 cisho xidhnaayeen taasoo khaladna ahayd waayo dadka Soomaaliland ku dhasho dhan Somaliland way wada leeyihiin
ma ahan kuwa waan go-ayna iyago xaq gaara uguma laha waxa joogi kara magaalada Hargeysa waxa joogi kara kuwa leh waxaan nahay Soomaali weyn oo Soomaali weyn man sugayna waxa joogi kara kuwa leh mayna Soomaali hago Somaliland hagoodo kuwa leh mayna gobolkaygu hago waxa soo dheer waa in doodi ka dhaxdhacda waa in cidna lagu xirin fikradeeda waa in waliba xisbi furtaan kuwa rumaysan in Soomaali weyn lagu biiro in xisbi furtaan oo aanu hadda Hargeysa maado in xisbi ka furan karo oo la ogolaan hadii la iga reeyay hadhow waa halkeeda laakiin waa in la cuna qabateenin oo la xirin waayo de meesha waan leeyahay waan ma garanaysaa ka tirsanahay waan xaq baan u lahayn dhinaca u socoto aan ka doodo marka nimanka haday u ogolaadeen inay soo degaan meesha oo ay sida doonaan u dhaqmaan waxaan u maleeyaa waxaan islaahay dawladda Soomaaliland malaha ceebii hore gashay waa ka soo dhawaanaysa oo arinta dimuqraadiyadii sax ahayd ay u socotaa waa dimuqraadiyadda koox gaar ah ma laha inta waan go-ayna luun ma laha waa in dimuqraadiyaddu ku xidhnaataa xataa kuwa leh waan Soomaaliland wayna kamid ahaataa Soomaali weyn wad ma tantahay Dr. Warsame dhawaan waxa ka dhacday Soomaaliland doorashooyin madaxweyne lagu dooranayay waxa laga guuleystay madaxweynihii hore dhulka Soomaaliland maamulayay waxa guuleystay in la yiraahdo madaxweyne Siiraanyo sidee doorashada u aragtaa abdu doorashada waxaan u arkaa guul runtii soo yeetay dadka halka oo bartay dimuqraadiyadii waxaana aad iyo aad runtii u hambaleynayaa madaxweynihii hore Daahir Rayaale Kaahin oo si ma garanaysa sharaf leh arinta ku wareejiyay oo ka duwan waxa Afrikaanka looga bartay oo iminka waad arkaysan Ivory Coast waxa ka dhacaya mid baa laga reeyay wuxuu diiday completely inuu wareejiyo buu diiday aad iyo aad bay taa uga duwan tahay waxa uu Daahir sameeyay oo xataa mar la isku yar qabsaday oo malaa xisbigiisa qaar kamid ay yiraahdeen waxba lagu shubtay intuu banaanka soo baxay buu aniga gacanteeda ku dhiman mayso dimuqraadiyadii laftigaygu aan kobciyay ku dhiman mayso waxaasina waa wax Soomaaliland u soo hoyday Soomaaliyana u soo hoyday weeyaan guusha noocaas oo kala oo qaybaha kale Soomaaliland ay ka baran doonaan dadka kale Soomaaliland ka baran doonaan xataa qaar badan oo kale Afrikaanina ay ka baran doonaan ayaa ridi marka runtii waxaan u arkaa guul u soo hoyatay dadka Soomaalida oo dhammaan u arkaa waa hagaag Professor Warsame intii doorashadaasi dhacday ka bacdi oo laga joogay ilaa 6 bilood ilaa 5 bilood 6 bilood beelaha qaarkood Soomaaliland ku dhaqani ayaa aad iyo aad uga cabanaysa bursiga madaxweynaha beeshiisa ku samaysay haday noqoto jagooyinka wasaaradda hay'adaha madax banaan iyo manaaficba leh sidoo aragtaa jagooyinka ma garanaysa dawladdu ay siisay beelaha qaarkood oo beelay kala ka qalisay horta walaal runtii arintaas wali waxoogaa baaritaan yar baan ku haynaa oo kooxan waan ku jiray baaritaan ku yar hayso hase ahaatee ilaa iminka intaan sameeyna waxaan ognahay in marka la isku celceliyo golaha wasaaradda agaasimayaasha guud la taliyayaasha ku-xigeenada golaha wasiirada waxaasoo dhan marka la isku celceliyo in ay u eg tahay in wax ku dhow 80% runtii ay u eg tahay in beelaha dhexe madaxweynuhu ka soo jeedo la siiyay inay u eg tahay taasina dee runtii waxaan u aragnaa inay tahay wax waxoogaa aad iyo aad dee u khalada oo inkastoo qof aan la isku tirin haddana arintaasi waxaan u aragnaa in gobolada ay ka mid yihiin Awdal iyo Salal ay ka mid yihiin ma garanaysaa qaybta Burco ay ka degaan dadka kale aan gobolka ahayn Sool Sanaag in aad ugu yar tahay 20% wax kamid ah in la siiyaa waxaan u arkaa runtii inay tahay wax aad ma garanaysaa waxoogaa u khalada baan qabaa laakiin da kulley haddii meeshii dimuqraadiyadii jirto oo dadku wada hadlayo oo uu isku sheegayo meeshii wax laga sadbursaday waxaan qabaa in wax la sixi karo uu yahay oo in la saxa ay tahay ay dibna ugu noqdaan runtii saxaan waxaan runtii ku boorinayaa dadka ma garanaysaa cabanaya inay had iyo jeer si nabada waxooga u sheegtaan dibadetana waajibna waxa ku ah kuwa dawladda in umuurahaas oo kale deynta dib ugu noqdaan ay dib u fiiraan yiraahdaan warba waxaan dadku tirsanaya khaladka ay u arkayaan aan fiirino dabeetana saanu saxi kareen aanu saxno had iyo jeer rishafal baa la sameeyaa
dawladda dib baa loogu noqdaa wax joogta maaha oo khalad haddii uu dhaco dib baa loo saxa waxaan filayaa inay sixi doonaan baan filaya laakiin hadda khaladaad baa ka muuqda professor waa telefoon khadka inaga xumaan u malaynayaa su-aasha u dambaysan ku weydiinaya waxay tahay maxaad fariin ku aadan sanadka cusub gaadhsiinaysaa dadweynaha ku dhegaysanaya walaal dadweynaha ay dhegaysanaya waxaan leeyahay kow sanadkii horeyna dhaafay guul iyo dhibaato labadaba waa lahaa guulaha waxaa kamida dhinaca Somaliland oo kale doorashooyinkii ka dhacay ayaa guulaha kamida si nabadgelyada ku dhacay dimuqraadiyadda ku dhacday uu runtii daahir yaala meel taariikh ay ka gali jiro dadka Soomaaliyeed iyo dadka Somaliland waxa kale guula dadka runtii isku dayay inay isku soo ururiyaan Soomaalida reer Puntland oo kale oo ma garanaysa ciyaarihii gobolada ku qabtay halka garow ku qabtay bishii December guulo badan baa u tahay xataa kuwa federaalka ay ma garanaysa dawladda Sheekh Shariif isku dadayna dad mutacalimiin ay wasiiradooda ka dhigaan meelitaalka uu gaarsiiyaba waa guulo soo hoyday weey dhibaatooyinku waxay kamid tahay oo kamid ah dagaalada weli socda koonfurta ka socda aad iyo aad u dhibaateynaya gaajada weli ka jirta meelo badan oo Somaliland iyo Soomaalida iyo Puntland iyo qaybta koonfureed labadaba waxa guul darro ma garanaysa dawladda Sheekh Shariif oo laga filayay heer ka fiican ay gaadho sanadkii dhaweyd oo aan wax macno la sameeyay iyaga soo qabsaday oo kuwa baarlamaanku is qabsadeen kuwa wasaaraddu is qabsadeen madaxweynihii iyo prime ministerka ay qabsadeen waxa soo dhanba dhibaato dhacday haddana laakiin waxaan qabaa anigu dadka Soomaaliyeed sida ku dhamaan maayo waa badan yihiin waana soconayaan ilbaxnimo badanna way sameeyeen waxbarasho badan way sameeyeen dhaqaale badan way sameeyeen inta isku ururiyaan isku geeyaan oo wadankoodu ay dib ugu soo ceshadaan uma u dhiman waxaana filayaa sanadkan soo socda inuu noqon doono mid at least la gaaro qayb kamid ah taas oo guul ku dhamaada ayaan rajaynayaa marka qancina guul baa soo dhowban qabaa aad iyo aad baad u mahadsantahay Dr. Xuseen Axmed Warsame aad baad u mahadsantahay intaana waxay nooga waraysigan la yeelanay Professor Xuseen Axmed Warsame